بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال كسو dhawaada waraysiga toddobaadka xilligan waxa marti igu ah sidaad arkaysaan Sheekh Maxamed Idris Ahmed oo kamid ah mashaayikhda waaweyn ee Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Nairobi barnaamijkeena mar hadii qof culumaad aragteen waxaanu kaga hadlaynaa bal diinta islaamka iyo dawladnimada iyo diintu xagee isaga xiran tahay marka hore ku soo dhawow Sheekh magaalada Nairobi ma aha markaagii koobaad ee aad timaado Nairobi intaanan u guda gelin mawduuca aanu kaga hadlayno barnaamijkeena waraysiga toddobaadka ee ah dawladnimada iyo diinta waxaan jeclaan lahaa balan dhawaan Facebook bartaada aad ku leedahay waxaad ku soo bandhigtay qodobo ilaa 5 qodob ah oo aad ku dhaliilayso dawladnimada iyo sidii la rabay in wax looga qabto dawladda xilligan hadda sanadkii saddexaad kii afraad bilowday xilli kala guura lagu jiraa 3 sano kadib ayaad dhaliil bilowday shalay maxaafida ahayd dadku wada ogyihiin intaanan u guda gelin doodana waxaan jeclaan lahaa marka hore si dadku ay noola socdaan dawladnimada iyo diinta horta xagee isaga xirmaan maxaa xiriir ka dhaxeeya horta waa dhowahay sida igu soo dhawaysan Universal waa TV-yada maartay aanu waqti dheer xiriir ka lahayn su'aashaada haddaan u soo noqdo waxa weeye diinta iyo dawladnimadu ma kala baxaan maxaa dhacay diinta islaamku waa diin dhammaystiran adduunyo iyo aakhiro labadaba dawladnimaduna adduunyadii bay ka mid tahay marka saas darteed ayaa diinta ay ka mid tahay dawladnimadu iyo siyaasadda iyo nidaamkeedu uu ka mid yahay nabiga kaleey salaatu wasalaam asxaabtu markii uu adduunkan ka baxayay oo ay dhaheen noo dardaaran wuxuu yiri uusiikum bitaqwallahi wa sam'i wa taa'a wa inta amara alaykum abdun macnaha waxa weeye nabiga kaleey salaatu wasalaam dardaarankii ay weydiisteen wuxuu isku daray dardaarankii aakhiro iyo dardaarankii adduunyada oo dawladnimada wuxuu isku daray dardaarankii alla ka cabsiga oo aakhirada oo taqwada ilaahay uu ku hagaagi lahayd iyo ismaqal iyo kala dambeyn iyo sadeecad oo nidaamkii dawladda ah marka saas ay dawladda iyo diintu isugu xiran yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka kariimka ah qayb badan oo kamid ah waxay ka hadlaysaa dawladnimada iyo nidaamka iyo maamulka iyo ismaqalka iyo xiriirka iyo cadaaladda iyo kadigida dulmiga iyo waxa soo dhanbe ka digay inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ayadaas xagee baan geenina ilaahay wuxuu idin farayaa amaanada inaad u gudataan iyo xilka sidoo ilaahay idin faray dadkii ilaahan u gudaan wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adli haddii aad wax xukumaysaan oo maamulaysaan inaad ku maamushaan cadaalad arintaas masalaad bay ka hadlaysaa cibaado ka hadlaysaa aakhir ka hadlaysaa mise adduunyo iyo dawlad iyo nidaam bay ka hadlaysaa marka saas darteed hadalkii oo kooban dad badan bay iskaga qasan tahay oo yiraahda siyaasad maxaa galiyay iyo wadaad siyaasad maxaa wardiintu waa siyaasad waa dhaqaale waa maamul waa qoys waa adduun waa aakhiro Sheekh Maxamed Facebook waxaad ku soo qortay ilaa 5 qodob oo hanaankii siyaasadda dawladnimada dhaqaalaha shaqaalaha wax walba leh oo ku ifinayso dawladdan 3 sano jirtay waxyaabihii looga baahnaa ma qabatay mar hadii ay dhaliil timaado dawladdu wax qabadna way leedahay amaan meel ka jirta meeshii dhaliil ka jirta amaanna way leedahay 3 sano kadib maxaa la dhihi karaa Sheekh Maxamed Idris way ku xambaaraysaa xilligan isagoo culimo ah inuu mucaaradad bilaabo oo shalay dadku ay og yihiin markii dawladnimada laga hadlo sida awoodda leh ee u taageereysay sidaad u garab istaagtay marka dawladda mooshin baa la keenaa la yiraahdo sida u hadlaysay maxaa shalay ku muuqday oo maanta isbedelay muxaafid iyo mucaarad anna horta ma kala lihin hadaan nahay culimada ama wadaadada waxa weeye mar walba waxaan nahay horta muxaafid dhinaca dawladnimo ilaalinta waayo waxaan aaminsanahay sida hadaba xadiiskii aan ku akhriyay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam waxaan idin farayaa ismaqal iyo kala dambeyn waa dawladnimo waa nidaam waa hanaan maamul weeye marka mar walba horta dawladnimada iyo qarannimada ayaan horta anagu taageersanaa ee ashxaas ma taageersan dadka qaar baa laga yaabaa inay u qaataan marka aanu dawladnimada difaacayno ama dawladnimada aan dadka ku tirtirsiinayno inay ilaashadaan inaanu ashxaas iyo afraad ama dad gaar ah aan u jeedno ma aha arintu taas arintu waxa weeye dawladnimadaanu mar walba taageersanaa qarannimada ummadda waayo waa ummadoo dhan bay maslaxa u tahay
taas waa dhinacaas xagga mucaarid iyo muxaafid iyo anigu ma kala aqaano laakiin waxaan aqaanaa in dawladda loo naseexayo naseexadaas marna waxay noqotaa si hoose oo madaxda loogu naseexayo waniga waxaas iyo waxaas ummadda maslaxa u ah sameeya waxaas iyo waxaas hala sameeyo taasna weligeeyaba waa wadnay madaxdii hore iyo kuwa jooga iyo inta noolnahay kuwa ka dambeeyaba waa ku wadi doonaa marna waxay noqotaa kor in loo qaado haddii maslaxad loo arko marka waxaa la dhihi karaa dee hadda inaan naseexadii inaan kor u qaado bay noqotay waxaasa intaasaa la dadku laga yaabaa inay u malayaan mucaarad mi dawladnimada ayaan jeclahay dawladnimo aan ku soo koray dawladnimo aan wax ku soo bartay qarannimo aan wax ku soo noqday oo sharaf kuna yeelanay aan ku lahayn baasaboorka Soomaaliga iyo calankiisana meel walba ku mari jirnay taas weeye mid aan taageersanahay laakiin fardigu ama shakhsiga marka isagu maamulka haya wuna qaldamaa wuna saxmaa markuu saxan yahay waxa leeyahay waa fiican tahay markii laga gardaran yahay waxa leeyahay wariyaan laga gardarnaanin markuu isagu gaabis uu sameeyana waa loo tilmaamaya waa loo naseexana waxa la oranayaa waxaas iyo waxaas waa gaabis shanta qodob marka aan tilmaamay sida Facebook-ga aan ku tilmaamay hadalkaad ka soo qaadateen waxa weeye madaxweynaha hadda jooga ee xilka haya mar walba horta u duceynayna isaga iyo madaxdii horeba halkan waxaan ku hayaa waraaqihii aan ugu hambaliyay ku taageeray ugu naseexayay madaxweynihiisa ka horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii ka sii horeeyay Shariif Sheekh Axmed kulligood waa u naseexaynay ragaan maartay jecelnahay inay wadanka wanaag ku socdo way madaxweynahan marka waxaan iri anigu sida aan meesha ku qoray 3 sano baa hadda waqtigiisa dhamaatay dawladdan hadda jirta marka 3 sano kadib waa mudan tahay in wixii daliil jira la xisaabtami karo ka hor sida aad tilmaantay qoriyihii mooshinka ka waday sanad isagoon joogin waan ka hornimay waayo waxaan arkaynaa sax ma ahayn waa dawladnimadii bay dhaawacaysaa iyadoon waliba dawladdii sanad gaarin ama sanad wax yar dhaaftay oo maaragtay mooshinno iyo mucaarado iyo lagu kiciyo marka laakiin hadda 3 sano kadib waa la arki karaa waa la xisaabtami karaa waqti macquul ah ayaan u arkaa in laga xisaabtami karo wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin dawladdan marka ay timi xagga hanka siyaasadda طبعا waxa weeye waxyaalo badan way qabatay wanaag iyo xumaanba yani qofka bini aadamka waa leeyahay khaasatan sanadkii u horeeyay waxay la yimaadeen mushaharooyin la bixiyo xafiisyada wasaaradaha iyo maaragtay la hagaajiyo shaqooyinkii oo wax bilowda hawadii Soomaaliya la soo celiyo ciidamada oo mushaharkoodii la siiyo in la kala saaro iyo kala ciidamadii xataa la kala hufo wax jira iyo wax dhintay iyo wax nool maxaan ku sheegay maxaabiis dibadaha laga soo daayo xiriir dibadda ah xoog la hagaajiyo sawirkii waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalo ay maaragtay aan isleeyahay waa u qabsoomeen laakiin sideedaba dawlad waxa lagu qiimeeyaa koow horta maxaa laga sugay sida hadalkayga aan ku bilaabay dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si aan madaxweyne loo soo dhaweyn baa ummadda Soomaaliyeed u soo dhaweysay adigu waad ogtahay meel walba laga soo baxay caruur dhalinyaro yar iyo weyn dad Soomaali oo dhan marka horta hankaas in leeg baa laga sugayaa qofkii wax qabad yar laga sugaayana wax qabad yar baa lagu xisaabtamayaa marka qof adigu jawaan bariis laga sugaayo oo koomba keenay ma sax ma noqonayso marka horta meesha keenaysa taas waaye mid labaad waxa weeye dawladnimada sideedaba laba qodob ugu muhiimsan oo laga rabaa waxaa laga rabaa dawladdu amniga iyo kala dambeynta iyo nidaamka inay sugto waa mas'uuliyadda koowaad waana nolosha dadku meesha ku taagantahay nolosha dadku meesha ku taagantahay waa nabadgeliyo amni hadaanu jirin nolol ma jirayso shaqo ma jirayso ganacsi ma jiraayo dad soconaya ma jiraayo waxa ma jiraayaan marka horta waxa laga rabaa dawladnimo oo lagu qiimeeyaa nabadgeliyo xasilooni deganaan ayaa lagu qiimeeyaa waa qodob koowaad qodobka labaadna waxa lagu qiimeynayaa nolosha dadka sida ay kor u soo qaado nolosha dadka sida ay wax uga bedesho dadku shalay hadda maanta akhbaarta waxaan ka akhrinayn 3 caruura ayaa waxay ku dhinteen duleedka Muqdisho gaajay ugu dhinteen waa akhbaartay ku qoran tahay adiga wariye ah oo iga waran 3 caruura oo barakacayaasha Muqdisho kamid ah waana ka hadlay dhowr jeer baan ka hadlay barakacayaasha oo arrinkooda aan baraarujiyay waliba Muqdisho caasimadda meesha dawladdu joogto 470 xero sida hadda ay sheegayso tirakoobiyada UNCHR-ka
ayaa ku taalla muqdisho dhexdeeda ya oo xaafadaha muqdisho min cabdilcasiis iyo kaaraan ilaa iyo dharkeynley iyo wadajir ku taalla xeryahaas waxaa ku jira nus milyuun Soomaali ah baa ku jira oo aan heli karin kul dhammaantood waxay ka hooseeyaan khadka saboolnimada adduunka u degsan $1.90 maalintii qofku aanu heli karin dakhliga waa dadka gaajada u dhimanaya yaa la weydiinaa dawladdu marka waxa laga xisaabtamaa nolosha dadkeeda siday kor ugu soo qaado labada qodob laga xisaab waana labada qodob oo diinta siyaasadda ku dhisan islaamka labada qodob bay ku qiimaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri قريش مركو النبي عليه الصلاة والسلام قوم كيس كهله فليعبدوا رب هذا البيت وضن هؤلاء ربك بيت كان كعبده الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ربك جاجنا كقوديي نبت قلينا سيي نلش بني آدم الدونك أردن وحي كل سنة هاي nabadgeliyada iyo kala dambeynta iyo xasiloonida iyo quud halka wuxuu mariyo qofku inuu helo iyo minimum noloshiisa inta ugu yar meel uu seexdo oo gabaad uga noqdo qabowga iyo kuleylka iyo wuxuu cuno dawladda haday labada ku fashilanto wax kasto oo hadal keenta waa fashilan tahay Sheikh Maxamed oo hadaan indhaha la iska tirayn dawlad markay 6 bil gaarto sanadka ugu horeeyo waa la qiyaasi karaa meesha uu socotay wax qabadkeeda 3 sano kadib hadda ka hadashay waa xilli kala guura doorasho lagu jiraa maalmo yar kadib waxaad arkaysaa madaxweynayaashii iyo tartamadii dawladda hadda alla hadlaysa laftirkeeda u nasteexeynayso ayaa doorasho diyaar garow ugu jirta oo bari musharaxiin ah maxaa la dhihi karaa Sheikh Maxamed shalay 3 sano oo laftirkiisa uu taageero weyn ahaa oo qofkii hadlaba asaga u jawaabayay oo isxilqaan ku shaqeynayay rajada uu qabay oo uu ka waayay dawladda oo maanta iyadoo laftirkeeda doorasho ku jirto oo xilli campaign lagu jiro aad hadda dhaliilo u soo tirinaysaa dhaliilahan ma aha inaan maanta bilaabay aniga laakiin hadda ku sheegay waxa weeye awal maslaxadda waxaan u arkaynaa hoos inaan u tabino ma aha inaanan anigu halkaan intaan Nairobi-dan ka tagay ayaan muqdisho tagay oo 2 habeen joogay oo aan u joogay kaliya madaxweynaha inaan nasaaixda si toos ah u gaarsiyo shakhsi ahaan si aan meel la isu soo marmarin nacam marka macnaheedu ma aha inaan maanta hadlay waligayna waa hadli jiray aniga waa la yaqaan YouTube-yada ku jiraan dawladaha iyo dawlad waxa laga rabo iyo nidaam waxa laga rabo iyo siyaasiyiinta waxa laga rabo iyo saan u dhaliilsanahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed waa arin macruuf weey YouTube ka dad gasho baad ka soo helaysaa qofku macnaha ugu badan baan ka hadlaa arimaas marka horta ma aha shalay waa aamusnaa maanta waa hadashay ma aha shalay maslaxa waxaan u arkaynaa markii ugu horreysay horta waqti hal la siiyo qolo walba ثم بعد ذلك si tartiiba nasiixooyinka loo siiyo hadii wax isbedeli waayaan waxa imanaysa hadda dadkiiba inay anaga natuumaan sida hadda aad sheegayso oo la yiraahdo culimadu waa aamusan tahay marka waa inaan isbari yeelno waa inaan cadayno warka iyagu inuu cad yahay horena aanu sheegi jirnay haddana aan sheegayno dawladdan hadda dhaliilayso dawladaha ka horeeyay madaxweynayaal ay lahaayeen ma u tagto nasiixadaas hadda sida hoose madaxweynaha hadda jir ugu sheegaysay ku hore ma laga helay ma ka heleen waxa ugu soo dhawaa madaxweyne Xasan Sheekh qodobadii aan halkan qodobada aan kaga hadlaayo qodobo la mid ah ayaan u sheegay haddii aan halkan ka raadiyo waan ka helayaa saan rajaynayo warqadda madaxweynaha warqad madaxweynaha aan u gudbinayo oo aan leeyahay qodobadaas amniga markaan Facebook ka hadlayay iyo may toos isagoo saa ii hor fadhiya madaxweyne Xasan Sheekh oo Mareykanka mar uu noogu yimi ayaan fartana warqadiina ka saaray toosna ugu sheegay waxa kamid ahaa hadda halkan ku qoran dadka la adeegsanayo xildoonka ah dad badan oo iridahaaga fadhiya ma aha waan dadkii xilka loo dhiibi lahaa haddana halkan waa tan ku sheegay madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa tan u sheegay oo aan lahaa dad badan oo maaragtay xilalka hadda loo dhiibayo oo dawladda ka haya ma aha dadkii xilka loo dhiiban lahaa way isagayna dib u tahay oo isagayna nasiixa u tahay marka aanu saas leenahay because waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'aala yawm al-qiyaamah qofka madaxda imaamka isaga yawm al-qiyaamah loo soo istaajinaa 15 milyan oo Soomaaliyeed hadda 3 cunugo ma sheegaynay ku dhintay duleedka Muqdisho
shaki igama jiro in madaxweynaha berrito ilaahay subxaanahu wa tacaala yowm alqiyaama uu weydiinayo ulil amrigii weeye adiga waxaa laga yaabaa inaan lagu weydiin anigana lay weydiin maxaa dhacay inagu mas-uuliyad khaasa baynu nafteenna ka nahay laakiin ninka xilka haya ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdee isagu waa xil guud isagaa wuxuu yidhi anigu ummaddan soomaaliyeed baan mas-uul ka ahay oo maslaxadooda ka taliyaa marka isma qabanayso maslaxadoodan ka taliyaa iyo oo wanaaggoodaan raadiyaa iyo wax kama ogi isma qabato saas darteed ayaan mid walba ugu naseexaynaynay qodobada aad aragtay fiiri qodobada aan kuu sheegay waxay ahayd hannaanka iyo hoggaaminta siyaasadda oo dee maaragtay maamulkii hore waxba lagama bedelin sidii hore kuwii hore ahaan jireen meelaha in laysku keeno saaxiibtinimo lagu shaqeeyo nidaamkii maxsuuliyadda uu jiro corruptionku uu jiro nidaamyada wax lagu shaqeynaya ay jiraan doorashooyinka iyo kaambeenaad hadda sheegtay kaambeenada imisaa lacag ku baxa carruurtan meel quudina haddii loo sameeyo way dhergi lahaayeen lacagta kaambeenada lagu bixiyo hadda waxaa ugu dambeysay galmudug jubbaland maxaan ku sheegay puntland maxaan ku hadda waxaa soo socota tii kaleeto loo soo faysanaya biraha loo soo faysanaya nin walba imisuu helaya xildhibaan imisaa lagu gadanaya codad imisaa lagu gadanaya waxaasoo lacagahi annaga waxaan leenahay ha aado amniga iyo nolosha dadka askariga waan tilmaamay nabadgelyo maxaa leeyahay nabadgelyaha la la'yahay caasimaddii magaaladii magaalo madaxdii waa cinwaankii waa adreeskii magaalada haddii maalin walba madaxtooyada agteeda uu qarax ka dhacayo oo qofku intuu dibadda ka yimaado suu doono magaalada aanu u mari karin oo waxaan 80kan wasiir iyo 300 oo xildhibaan ay ku xiraysan yihiin hudheella ay ku xiraysan yihiin sidee ummad war uga hayaan sidee loo maamulayaa ummad sidee dalkii maalgelin u imaanaysaa sidee ganacsi u imaanaa sidee shaqo u imaanaysaa nabadgelyadu marka waa raqam waaxid askariga nabadgelyada sugi lahaana 170 baa la yiri hadda baa looga dhigay awalna $100 u qaadanay $120 waa loo kordhiyay Soomaa $170 waa $170 maalin waan tilmaamay wasiirka xildhibaankana 10,000 oo wax yar dhiman 200-300 dhiman way markaan budgetka aan fiiriyay dawladda budgetka hadda 2020 oo dawladdu soo dhigtay waa wax cad oo la yaqaan intuu qaadanayo xildhibaanimo intuu ku qaato wasiirnimo intuu ku qaatana way caddahay 9,600 markuu qaato waa 60 askari mushaharkood waay 60 askari oo wadada taagan oo qoraxda taagan oo sidaan sheegay dreesku ka dhacayo gaajo darteed qoraguna ku culus yahay ayaa waxa leeyahay nabadgelyo sugaayada wax soconaya ma waxaas marka ma aha wax laga shaqeynaa amni ma shaqeynayso arintaas amniga laga rabaa waxa laga rabaa xulashada dadka iyo shaqaalaha iyo agjoogayaasha nabiga kaleey salaam wuxuu leeyahay qofka hadii ilaahay khayr la doono dadka la shaqeynaya dadka ka qoran leadership-kana waxay dhahan nin madaxa hadaa rabto ina ogaato dadka ku xeeran baa la fiiriyaa isaga ha fiirin dadka ku xeeran fiiri talada siinaya ee ku dhow ee la socda ee la fadhiya ee la socdo waxay la dadkaas haday yihiin dad xaq u sheegi kara oo runta u sheegi kara oo naseex u ah ee aan iyagu danahooda ilaashanayn ninkaas waa guuleysanaya madaxtinimadiisuna guuleysanaysa isagaana la rabaa inuu xusho marka dawladdan iyo dawladihii ka horeeyaba waxa inkaari ka haysataa qofku ka liito Soomaalida soo xulanaya la taliyaal iyo wasiiro iyo bahalkeeda dad waxay soo xulanayaan war xataa qabiil hadii wax lagu qaybinayo qabiil walba dad fiican oo ilagu ku jira shalay waxaan ku qoray Facebook-gayga konton wadanaan soo maray hadda South African ka imi wadan walba waxaad ku arkaysaa dad Soomaaliyeed oo brilliant yaani maskax meesha ugu sareysa wadamada ka shaqeeya ama dawladdahaasay u shaqeeyaan ama shirkado waaweyn bay u shaqeeyaan ama jaamacado waaweyn professors ka yihiin waa maskaxdii cuquushii yaani labeentii Soomaaliyeed meel walba joogta gudahana way joogaan oo way ka buuxaan iyagoo culimo iyo iyagoo injineer iyo wax walba dadkaas lama adeegsado loomana yeerto maxaa dhaca qofkan runtu ku sheegaya
waxa maslaxada buu ku sheegaya dadka madaxda waxaad moodaa in badan inaanay rabin qof runta u sheega ama qof yiraahdo waxaan aad ku socotaa qaldan insaan ma sax maaha sidaan wax loo sameeyo waxa laga yaabaa inaan doona saas darteed dadka xaabada bay urursanayaan oo aan oran karo yes manka ahlan wasahlan waxa sheegto waxa kale oo aan ka hadlay kaabiyaasha iyo adeegyada horumarinta baa dawladaha lagu xisaabiyaa xamdi Soomaali badan aan daawanaysa horta إعلامكو هذا دوا فريه دونكو يسوي فريه قل يرواية لباتن سنة وأنت كده ما يسعرتها ما أنتوا حنقول جرنا لبكون يا لباتن عرتا واحد دولة يوه الرئيس عبد القاسم مدحون عبد القاسم الصوري لبكون يا لباتن إلهي يقول داريه حمدي justification أما عذر دار من نقون كرتا وضعن كابياشي دقالها اسبتالها نقط اسكول هالنقطة بيه هالنقطة كورنتا هالنقطة يا شقة أبور هالنقطة ورشدة هالنقطة دكده هالنقطة هل شيء أو دولة ده كم إذا أفرت الدولة ده صار دافتي يا لقد حريم يشك هل مشروع هل بروجكت يشك الدون كردنا واحد اللي أجي هاي نلاشي أن شيء إني هدارته إنا دستو كابياش هذا قالوا إنا دستا wadadii dadku mari lahaayeen oo ku shaqaysan lahaayeen iyagaaba ka mashquuliye waa inaad u dhistaa warshadii ay u shaqo tagi lahaayeen waa inaad u samaysaa korontadii hadda mashruuca korontada ka soo qaad fiiri magaalada muqdisho waa magaalada ugu weyn waagi dawladii maxamed siyaad barre jirtay eenaya bahasha la dhihi jiray mise korontada maamuli jirtay magaalada muqdisho oo dhan كنتن إيه 5 ميجا وايت بي أهيد أنت يعني شداء كورنتو أي أوبا هنتاي أنت كوسا ما يسنى جنريتر ريدي جزيرة إيو سنترال ولا ساسي أهيد وتصالن كاسينا يير كنتن إيه 5 كاس مركي الدولة دي سي بربوري سي ويبا بعض السجال ميجا وايت لما قالت الشديس 9 ميجا وات حافظ ير معها أدونك هذا دولة دي شريف دولدي حسن دولدي محمد فرماجو لبيه 10 سنة واهي لبيه 10 سنة واهي كورنتادا استهلاك دادك نولشودا مقدشة أي كو إيبسدان وبرايفت شركة برايفت على جنريتر رو كو سميستا يسكو دو شقيستا هل دولار ويا هل كيلووات كان يدن فيري أدو إحصائياتك بقول كيف أفرتن بيكسر سريسا بقول كيف أفر بقول بيكسر رئيسا قيمة الدون كودن صدح ذو وضن أو كورن تقال لسن بيكون جرتا مشروع ير أو وحى كفلا صدن ميجا وايدا أما كنتن ميجا وايدا بما قال هذا الشيء كرتا أو دولده مشروع هذا أفرتن مليون شن يسدن مليون أنك بدنين ما وركان كهلا يا و إحصائيات أنك كينا يو إنجنير هذه الشيء هذا يو ذاتك مشاريع ده الحين الدولة دينا كمان دقائق 6 مليون محيطها أنا وحن هو لالوشية ذا كان بين ذا الدور الشوي كسيدة حتى تنصوص عطية سيدة كوا حتى صعدة إنك كبر أنت هالعقد كوب هذا هبين هل هبين إنك العقد one night هل هبين بين لالوشية كوب هذا عضد لوك اللي يبسنايو 6 كمليون إذا نجاجوا دمنا كونتلانا ودمنا يعني سديتهم بقول كيف بدك جوه سوماليا they have no access to electricity ما هيستان electricity مجلي كرا dadka shilinka bixin kara kaliya qaad marka walaalay kaabiyaashii dhaqaalana halkaas aan ka taaganay hal cusbitaal maalin dhaweyd waxaan iri universal markii qaraxi u dhacay war qaraxi 2016 17 oo soobe waan ka hadlay هائري لحقها أورينا سومالي أورينيسا دولته هم مشو هل عصبتها لو قصة ما يصدق كان بريها تقرح كلا نقصها النقطة أما ضد باتيس نقصها النقطان ولا ليالو ويدعي ساية من اللي قد داوي هلا هلا ما يا تركي بقى الناس ودرتي ديارد محن كوشة جاي محن كوشة جاي قطر بقى الناس ودرتي ديارد أو داوعية أنكو قادن مع الأسف ولي بوحن كوشة جاي داوعية حتى لقاضي سومالي ماشي أن جارني داوعية حتى ولا كلا دورة كربشن بالقو قاضي ده اللي قلت جاء نين قرب له أم وزير له أم حلبان له بالقاضي sometimes مررك قاركود وحال قدرها كوان قرح بيجو كون قنة هري الله أو نين وطه قرب له بالقدرها
dulmigaasu markuu dhacaayo raxmadda ilaahay inay soo degto suurtagal ma aha marka kaabiyayaasha dhaqaale adduunka oo dhan waa la og yahay wadda haddaad dhisto shaqa abuurmaysa dadkii baa isu soconaya waddanka waxaa soo gelaya badaa'ic iyo badaa'ic la dhoofinaayo dhaqaalihii baa kor u kacay waa macruuf tusaale waxaa loo soo qaataa oo hadda adduunka loo soo qaataa kaabiyaha dhaqaale sida uu uga qaato yacni koritaanka ummadda sida uu uga qaato India iyo China loo soo qaataa tusaale China 20 sano u dambeysay 30 sano u dambeysay waxay xoogga saartay kaabiyaasha dhaqaale 55,000 oo mayl oo jidad ah bay up to 2020 ay fulisay Indiana boqolkiiba 3 bay dakhligeeda ku bixin jirtay kaabiyaasha dhaqaale iyo jidad cusub meesha China ay kaga bixinaysa boqolkiiba 10 way isdhaafeen sababtoo ah ajnabiga doonaya inuu investment waddanka ku sameeyo wuxuu fiirinayaa infrastructure-kaaga wuxuu fiirinayaa kaabiyaashaada koronto ma leedahay jid ma leedahay airport ma leedahay xaggeen kuu soo maraa xaggeen wax soo marsiiya innaga hadda waxaa leeyahay Soomaaliya khayraad bay ka buuxdaa waa sax khayraad bay ka buuxdaa laakiin khayraad dawladda la rabaa inay dadka tuso kaabiyaal intay u samayso jidka u samayso adduunka la diyaara adduunka dad lacag haysta jira adiga khasab ma aha lacagta inay hayso dawladdu waa ogahay inagu hadda dawladuhu budget fiican aan lahayn budgetkeenoo dhan hal shirkado shirkadaha aadka u yar ma aha adduunka ka jira ma aha laakiin adigu dhul baad haysataa dhul markaad haysato landlord baad tahay ninka annaga marka noo madaxweyne noqonaya dalkaanoo dhan buu landlord leeyahay dalkaanuu leeyahay isagu oo madax u yahay oo hogaamiye u yahay marka wuxuu iibiyuu haystaa hanti baad haysataa hanti dhul baad haysataa bad baad haysataa beeraad haysataa xoolaad haysataa bas waxaad u baahan tahay inaad suuq geyso oo si cadaalada u maamusho inta kaliya u baahannahay waxaan kale qodobka ugu dambeeya aan ka hadlay oo ahaa ama aan soo shaaray sare u qaadida nolosha dadka walaal dadku haddii ay gaajo u dhimanayaan oo shaqo aan heli karin dhalinyaradu 70% waaye annaga Soomaalida hadda daayarto 70% waa shacbi dhalinyaro ah waaye dhalinyaradii shaqo hagee helaya tahriib wada aadayaan ama waxay galayaan inay shabaab noqdaan oo adiga ku dilaan oo maaragtay ka soo horjeestaan because agtooda koobka shaaha ah dadka hoteelada jiifa oo siyaasadaha u jiifa ya taasuna ma aha dawladdan kaliya waa dhaqanka siyaasadeed ee xun ee faasidka u baahan ummadda Soomaaliyeed inay iska dhaqdo u baahan waxa weeye hoteelada la jiifa koobka shaaha ama koobka qaxwada iyo bahalkii iyo baa lagu cabaa kafeega $100 annana waxaan leenahay maalintii $2 dad aan heli karin baa jira oo gaajo u dhimanahay maxay dawladda sheegnay marka waxyaalaha la inoo sheego waxa waaye dad baan maaragtay qaanuun hebel baan sameynay sharci hebel baan sameynay xaggaan la hadalnay arrimahaas oo dhammi waa arrimo aan justification ama cudurdaar u noqon karin in nabadgelyadii dalkana 15 sano kadib ay meesheedii taagan tahay horumarintii dalkana hal cisbitaalna ha noqday aan la sheegi karno weli aan baryayno Turkiya iyo Qatar inay diyaarad noo soo diraan waxaasuna wax la aqbali karo ma saas darteed anu hadalka waxaan u jeedinayaa anu lama hadlayn nimankan siyaasiyiinta ama kuwa jooga ha noqdaan ama kuwa soo socda ha noqdaan oo soo sharaxaya kuwan hore u soo aragnay waa soo aragnay wax isbedeli ma jirin haddana ma isbedelayso kama rajaynayno anu dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay xorooba oo xaqiina raadsada anu nasiixada taasaan ugu jeedinayaa ilaahay taasaan la hortagaa waa inay kacaan maxaa afba ilaahaysi waa inay kacaan oo ay ka hor yimaadaan oo diin waxa kan dhiiga ka jiqaaya oo siyaasiyiinta lagu magacaabo waa gartay Sheekh Maxamed hadda xilli doorasho la bilaabay mar haddii sanadka u dambeeyay la gaaro dawladda markaa jirta waa xilli kala guur ah diyaar garowga doorashooyinka jiraan marka aad fiiriso hogaamiyaasha tartamaya ama wax raba kuwan ha ahaadaan kuwii shalay wax soo ahaa ha noqdaan kuwa cusub hadda rajo qaba ha ahaadaan markaas ay hadlayaan nin walba wuxuu leeyahay khudbad qurux badan wax markaas uu rabo in lagu doorto uu attentionka dadka ku soo jiito diinta islaamka markaad fiiriso maxaa hogaanka horta daacadda ah looga baahan yahay haddii uu hareen marase maxay diintu ka qabtaa oo bari waajib ku ah walaal waxa weeye hogaanka islaamka waxa looga baahan yahay laba arrimood إن خير من استأجرت القوي الأمين وإلهي قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم
islaamka qofka shaqo loo dhiibayo shaqana waxa ugu muhiimsan shaqada hogaaminta ummadda ee ah madaxtinimada waxa looga baahan yahay inuu shaqada aqoon u leeyahay awood uu ku fuliyo leeyahay kartideeda leeyahay waa qodobka labaadna inuu yahay qof ammaano leh oo aan khaa'inahayn oo aan corruption ku dhaqmihayn oo aan isdaba marinayn oo aan musuqmaasuqihayn inuu yahay ee shirinkii loo dhiibo loogu imanayo labadaas qodob baa looga baahan haddii aan fiiriyo marka anigu rag soo maray ama rag u korseynaya qof aan ka dhex arko inta daahirka annagu qulubta kuma jirno waxaanu ku xisaabtamaynaa arqaam waaxid iyo hal lagu daray laba waay taasaan ku xisaabtamaynaa waxa noo muuqda waxa daahir annagu ma ku xisaabtamayno waxaanan arkin waxa aanu aragnaanu ku xisaabtamaynaa ma noo muuqato dad leh waxaa kale oo jira qofka hogaamiyaha islaamka marka la isku soo koobo oo quraanka loo wada fiirsado waxa laga rabaa saan sheegay inuu shaqada karti u leeyahay aqoon u leeyahay aqoontaasuna waa aqoon diineed iyo aqoon maadi labadaba leen qofku waa muslimna wuu xukumayaa hadduu jaahil ka yahay islaamkii iyo qur'aankii iyo sunnadii iyo diintii uu jaahil ka yahay muslim ma hogaamin karo suu ku hogaaminaa muslim maadina waa inuu aqoonteeda leeyahay oo siyaasaddii iyo adduunka iyo u dhaqmaa iyo u ogyahay oo wax la qaybsan karaa qodobka labaad waa inuu ammaano leeyahay oo aanu khaa'in ahayn oo shilinkii loogu imaanaya ama meel walba waxaad maxay u marinay amaanada u marinay in allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha shilinkii uu iska lahaa wiilka yarka ee gaajada u dhimanaya haddaan siiyo anigu nimanka aniga siyaasa ahaan taageeraya nimanada codka isiinaya waa khaa'inimo ummadii baan khiyaanay ilaahay baan khiyaanay nabiga kaleey salaam baan khiyaanay diintii baan khiyaanay waa musuqmaasuq waxa kaloo laga rabaa inuu yahay qof dadka la tashada waliba dadka ahlu cilmiga ah dadka aqoonta cilmiga culimada soo dhawaysto oo la tashado oo wax weydiiyo dadka wax garadka ah Soomaalisan ku sheegay waxa ka buuxa indheer garad waxaan la yaabaa anigu nimankan madaxdaay xaggay jiraan dadkan xaggay ka jiraan professoro aqoon-yahan adduunka oo dhammi uu raadinayo oo adduunka ka shaqaysta baa jira oo lagu qiimeeyo oo Soomaali ah tusaalan ku siina ani hadda nimankan dawladda qadar baa waxay sanadkii u horeeyay ku tabarucday jidka Jowhar ilaa iyo afgooy Soomaaliya 90 kilomitir iyo 30 kilomitir xagga ani waxaan ugu naseexayay oo aan garanayaa oo qadimay dad injineer ah oo Soomaaliya oo adduunka ka fuliyay jidadka ugu waaweyn oo la yaqaano baan u magacaabay oo adduunku qiimeeyo war qofkaas oo kale xataa qaarkood lacag idin kama rabo wuxuu rabaa dalkiisa inuu xoogaa u gudo war qofkaas oo kale waa Soomaali la shaqaysta aniga xataa haddii aad doonto waan magacaabi wallahi wax la qarinayo ma jirto hadda يا دلك سعودية جدت كذا وجبضا هل شركة بافروسيل وشركة بن لادن شركة داسنا إنجنير كوجوين ونسوا ماليا إنجنير عبد الولي بالله هذا معروف واي مكة مدينة حرمين كجد يسقع بصي أنت بدروا كم إذا بروجكت مانجر يسقعها بروجكت مانجر كا وحن كلاته أو شيء مثلا مقالة مقدسة هذا فيري دولته كابياشة دقال واحد كم إذا ترانسبورتيشن كان dad koodha mima bullet proof bay ku soconayaan dad koodha mima lan cruiser iyo qoqan bay ku soconayaan masaakiintu maxay ku soconaysaa 3 milyan ba magaalada ku nool waxay awoodi weysay dawladdu ama dawladeeda hoose aan dariiq dawladeeda hoose ku sameysay 500 bas kaliya inay keento oo dadka qiimo jaban oo macquul oo dawladdu subsidy ay ku sameyso ay keento xataa dawladaha waxa jira bilaash ku siinaya basaska in iyagu intay maartay ku cusub keensadeen bay ku siinayaan annaga naanfacaya waxaan u sheegay magaalada London injineerada basaskeeda 10,000 oo bas baa subaxdii dadka qaada waxaan garanayaa rag injineer ah oo Soomaali ah oo kala haga oo ka shaqeeya hal injineerkaas intuu idin yimaado buu systemka idin dijin bas systemka baskan u soconayo annaga magaalada maxay balagda Cabdilcasiis oo ka soo bilaabay wada jiru tagi baskaas 10 bas baa jidka loo sameeyay iyo meelo ay istaagaan iyo meelo ay maraan dadweynuhuna sida lacag yar oo jaban ha ku raacaan midalan waa waxyaalaha la qaban karo korontada jaban oo macquulka qof walba uu dareemi karo oo dadka faqiirka ay heli karaan asaasiga nolosha ayaad maaragtay dad war bani aadamkan ayaa la rabaa inaad dar yeesho
لكن مثلا هذا وحيالها يعني بريوريتيز كواحد يا سي أمور وكله الريان هذا دولة مر والبوح يكون مشغول صنتها ورير دولة قبليديو وان كلا تلني وداية اسكداية دولة قبليديو يوحنا بوقوض اسكداية دي بيسكدك نين أنيق التاجرها بالربا إنا كانوا هالك نين أنيق التاجرها بالربا إنا هالك نين أنيق التاجرها بالربا هالك إنا كانوا دي بيقدك مقالة عاصمة داهيد أجار كذي أيها ولي كو قاون أو شباب كو فتاة يقولين يا حجابات مركا ودلن دولي أو جدان كودجيني أو قل مدوان دقيو حاجة قسمايان دقيو تو وصعته هرتا هلو داقي أفجوي جوهري بلعض أنت وهري رئيسا هرتا كدك insecure oo qofku New York intuu ka soo duulo meeshan uu nabadgeliyo ku qabi karo magaaladan inaan mobilkiisa lagu xadi karo iska dhaaf wax kale mobilkiisa inaan la xadi karo wax kale uma baahnid marka dadku iyaga ku iimaanay dhaqaaluhu isaga ku iimaanay laakiin maanta yani hadii dawladii ba aanay dhaqdhaqaaqi karin madaxdeedii aanay meelaha tagi karin oo airport tagi karin iskuul tagi karin afgooy tagi karin halka tagi karin dadkii kale soo u marayaan dawladnimada xagga ka soo dhawaanaysa lacagtii lagu bixin lahaana ay ku baxdo campaign-ka halkaas laga sameeyay meel fog laga sameeyay nin culumaan tahay siyaasadina u firfircoon ku dhex jira culimada laftirkoodu waa wada siyaasiyiin marka shacabka Soomaaliyeed laga hadlayo waa dad islaam ah culimadu waa dawlad madax banaan booska ambiyada ay joogaan marka nin sheekh ahad maxamed idris oo kale inta soo istaago sheekh hebel soo istaago waxa dadku ay dhageystaan waa dareenka qofka waa haysan kartaan la idin kuma hayo waxan waa xaq iyo waxan waa baadil dawladdu waa ku milantihiin hoteelada hadda aad soo sheegtay waa degantihiin mushaaraadka la bixiyo oo iska wax u qabsada aad ku shaqeysaan culimadii laftirkooda waa afhayeeno dawladda maanta qalad haduu ka dhaco waxa arkaysaa culimo hadlaysa xil ay dawladda ka hayaan iyo goor la magacaabay lama yaqaan mushaar qaataan hoteelay ku nool yihiin waa degan yihiin ama reerahoodii loo biilaa kuwa qabiilay ku dhex jiraan oo waxa laga yaabaa maanta madaxweynaha jooga waa reerkaaga bari midka imaada ama kiisha la joogay qabiil ayagana wax u taageersan yihiin sidee dadka laftirkooda horta wax ugu sheegi kartaan oo wacdiga maanta daldalaysa ay ku dhageysanayaan markay ku arkaan Sheekh Maxamed Idris shalay dawladdu waa taageersanaa maanta waa diidan yahay malaha asaga mushaarkii la bixinay wax ka soo waayay ama shalay waxbuu loo balan qaado oo wixii buu la yahay kalsoonidii ma isleedahay culamaa diinkiini waa lumiseen dareenkii dadka shalay idinka qabeen culimada ayaan la dulminin culimadu waa xamalatul shariicada iyaga xambaarsan haddii aynu culimada yani durno ama wax ka sheegno ama kalsoonidooda dhaawacno shariicadii ayaynu dhaawacaynaa dad muslimiin oo nahay shariicadina iyaga noo sida taas macnaheedu ma aha qaladaadka ay leeyihiin ama bani aadam weeyo waa qaldamayaane mid daciifa iyo mid miskiina iyo mid maaragtay xaqi ka baqa iyo kullina waa laga dhaxelaya aqoontiisa gaaban tahay intaba waa laga helayaa taas kuma waxaynayo laakiin si guud ahaanad yeelan isku qaadin oo dhihin culimadii waxay noqdeen maaragtay ama inay dawlad kaliya u hadlaan ama inay caado qaataan ama lacag qaataan taas ma jirto xaqiiqana ma aha culimadu dad waa ku jiri karaan qaldama dad waa ku jiri karaan baqa dad waa ku jiri karaan cid u shaqeeya laakiin dawlad diintii waxa inoo haya waa culimadii intooda badanna alxamdulillahi rabbil caalamiin waa dad insha Allah taala kalsoonidooda iyo diintooda iyo wanaagooda ummadda u haya iyagana u soo hay taas waa qodob horta oo aan ku difaacayo culimada waana xaq in lagu difaaco midda labaad walaalay waxaan maqli jiray Soomaalidu waxay tiraa odaga habarta wax loo saar yani dadku markii ay waxyaalihii iyaga ku dhacay iyo kaalintoodii ay gabaan bay meel kale jecel yihiin inay iska saaraan culimadu wax ma fuliyaan dawladda waxa way inay u sheegaan annaga waa xabeebsanay sida u sheegaynay 20 sano soo doon qeylinayna war qarannimada war dawladnimada war amaanada war khiyaanada ka daaya war corruption ka daaya war dawladnimada inoo dhisa war waxa kan yaan maartay waa xabeebsanay ma garanaysaa marka taasna yaan la ilaawin taasuna waa halkaas waaye midda saddexaad waxa weeye walaalay annaga waxana saaran inaanu bayaanino xaqa anigu hadda naftaydan ka hadlayaa markhaatideedu waa ii taala alxamdulilaahi rabbil caalamiin Soomaalina way ogtahay wayna taqaanaa marka annagu xaq inaan cadeyno oo niraahno waxaas waa qalad waxaasuna waa sax وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه إلى سبحانه وتعالى إن الحق بيانيسان أو شيكتان أو ضدك أو عضيسان بايدين صارن
dawladaha ayaa kaalintoodii gabay oo la rabaa inay fuliyaan qadiyada amniga مثلا hadda maanta waxa la soo celinaa amniga nabadgelyada waxay u baahan tahay bir lagu qabto waxaan mashaariic waa wadankeena ka shaqeynaa diin kaliya ma ka shaqeynaa diintii la caday culimadii waa cadays waxaas diin ma aha bay tiri qof muslimo oo dad la xasuuqaayo diin ma aha diin looma nisbayn karo culimadu markay inta tiraahdo oo inta cadayso oo waliba intaas ay khatar ku leeyaan qaar badan iyagoo sujuudsan lagu dilay oo masaajidada iyagoo ku jira lagu dilay ma jiro dad kale oo lagu dilay markay saa u cadeeyaan wuxuu saaran yahay waajibku waa dawladaha waa maamulada iyaga ka gaabiyay oo ku fashilmay waxaana loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed si aynaan ugu jirin dhibaatadaas in soo haysatay intaas oo sano inay ka gilgilato ummadda Soomaaliyeed qabiyaaladan iyo waxaan ay dadkan ku dooranayso iyo lacagtan ay ku dooranayso qof walba markii la siiyo xoogaa loo iska aamusayo oo odayaal ha noqdaan qabiil ha noqdaan oo qof meesha geysanayaan ama xildhibaan geysanayaan ama wasiir geysanayaan hadiidaan oo dad fiican ha keensadaan ummaddu markaa way ka baxaysaa waxaan dhibaatadan dadkii Soomaaliyeed wanaagsanaa way buuxaan laakiin way aamusan yihiin Sheekh Maxamed nin culumaad tahay xaq iyo baadilkiina Ilaahay u kala saaray oo aqoontiisu ay gaarsiisay Allah kugu anfaco hadda Soomaaliya marka laga hadlo maamul goboleedyada jiraan dawlad goboleedyada laftirkooda dhibaato ka jirto shacabku ku qabaan barakacayaasha aad sheegtaa ku nool kufsiga ka jira dadka laftirkooda lagu dilaa Muqdisho marka laga hadlayo waa meesha ugu badan qaraxyada ay ka dhacaan waa caasimadii waa meel dad badan kulminayso dawladda laftirkeeda in dadkii la baraarujiyo oo dawlad xun waxa la yiri dawlad la'aan ka runtahay dawladnimadii dadkii ku wacyi gelisaan wax qabadka dawladda ka hadashaan dhibaatada shabaabka ay geysanayaan aad ka hadashaan boqol qof haday dhimato waxa laga yaabaa inuu shaqo ka hadla Iran iyo Iraq wax ka socda shaqo asaga aan Soomaali waxba ka gelin ama gabar yar oo meel ka haystay oo heblaay way qaawaneed ma dhihi karaan war dadkan wax dilaaya dhibaatadan dhacaysa iyo noloshaan socota mas'uuliyadan waxa la ABC qofkaasi hebel waxaan waad ku fashilantay diinta islaamka waxaan qabtaa waxaan waad ku guuleysatay oo hal lagu taageero mowqif cad oo dawladnimada aad ka taagan tihiin oo culimaa diinka ama ku midooba ama qof aad uga hadashaan aaday gabaabsi u tahay maxaa ku qancinay dadka Soomaaliyeed ee nadaawanaya ee idin tuhunsan in culimada laftirkooda ay ku milmeen dawladnimadii xamdi waxa weeye hadda waxa la yiri yani hada al-amr maxaa u dambeeyay kii hadda sii socday Sooma qaraxii 28 December hadda dhacay baa u dambeeyay ana waa ka hadlay culimo badanina waa ka hadashay nimanka dhahaya diin baanu ku sameeynaa inaanay diin ahayn waan cadeynay xukunka islaamka waxa uu ka qabay mowqifka kana waa sheegnay inta haddaan u sheegno waxaa la rabaa sida aan sheegay dawladuhu ama maamuladu inay nidaamkoodii qabsadaan oo shaqadooda qabsadaan gacanta iyaga wax ku suulin kara dadkan waxay u baahan yihiin gacan lagu qabto wiilasha yar oo hadda meesha laga soo saarayo oo TV-ga inta laga soo saaro la yiraahdo maalin walba dadkay ku dilayaan dawlad haday qaban weysay maxay dawlad ka tahay taas way in la weydiiyo marka waxa ku fiican inaad weydiisaan dadka arrinkooda ku fashilmay waa maamulada kuwa gobolada xataa marka kaaga sheego waa sax oo anigu dawladda marka aan leeyahay يعني دولة ضعيفة حتى هديتها هي إنه إلى شنوبين مر والبوباهنا وأنا جاي هذا إن ما كان هذا معارض وحنكون كل دولنا هي هل الردوء إن كان ماشي كعيرسو أنا وبوس مدوني إنه كما عيرسان إنه ميل وقلنا صحيحين إنه حربنا إنه نجحان كان هذا وحربنا إنه جوليستان ربنا كلا توجو إنه جوليستان ربنا هو قبل الله جو حربنا إنه جوليستان لكن نصيحة أجدينينا هذا وحواي قبل الله سيد شيء يسوي يغلف تقول كيف شلينهن بل هذا فيري إحصائيات كم لها قارك وضوان كل شيء يعني قبل كجبله هو سيء كلاته مثلا يعني وضم بدن ويوروب كم إذا بكوية وهل قبل سومها إنك دولة قبلات دولة بدن ويوروب ضد كان أقحان أيو كوية هي كان خيرات بدنية وهل قبل بري أو كلاته قبل كبري وبنتلاند قريب كم يضوها قبل كبري تضباط نكون أو سكوير كيلومتر واحد كليجيس وقبل كوجوين قبل هذا الصومالية قبل كاسو وقبل ككلي الله ببضض كجرة أما صدح بضض بعندها بضع بعربته وخليج كلا جشة بضع عص إنديان أوشن صدح سكوها يستع مجرو قبل كلا تو الصوماليات أو هيست
khayraad badan buu leeyahay gobolkan ku dhashay waa garanaya dawladdan oo Puntland la yiraahdo waa aagaas ka jirta dadkeeda nabadda jecel ay ku nooshahay laakiin dawladnimo kuma noola dawladnimo ma jirto dawladdu waxa qabto jid taga meeshaas oo ka yimaada oo dadkii isku xira gabadha umushay waxay ku dhimataa iyadoo maartay ilmaheedii bay umusheedii bay ku dhimanaysaa waayo wada loo maro male gaari hadduu soo qaadana 4 maalmood buu jidka ku soo jiraa maxaa wax qabad marka war aniga waxaan idin leeyahay xamdiyay anta cadaalad samaysaan war wadaadadu waa kuwa iskuulada idin sameey waa kuwa jaamacadaha sameey waa kuwa imaartay agoonta kafaalo qaaday waa kuwa dawladii ma sameeyeen 30 sano ya anigu gobol Soomaaliya kamid oo aan ka soo shaqeynay ma jiro dadka Soomaaliyeed oo dhan waa aqaana iyo gobolada ay kala degaan iyo si u degaan wadaadadu waa inta aad ku noolaydeen intaas yarta horta iska baabi'inina maya dad bani aadam ku jira laakiin looma wada baabi'iyo laakiin meel dhan oo siyaasiyiinteedii ay ku fashilmeen dawladihii ay ku fashilmeen oo maamuladii ay ku fashilmeen maalin walbana doonayaan fashilkii inay soo celiyaan oo kala iibsanayaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay idin ma cuntanto waa inagu filan tahay 30 sano oo nidaam la'aan iyo cadaalad iyo rafaad ah ya waxa yar anagu nidaamka waxaan leenahay hal la hagaajiyo dawladnimada hal burburiyo malihin ani mali dawladnimada hal burburiyo waa gartay hadda dawladda muddada yar ay u hartay maxaa tala ah oo ugu naseexaynaysa wanaagsan oo leedahay war waxaas waa laga gaari karaaye si dawlad tan dambe bari tan meesha joogtay tan kala ka qabanaysa ama ha soo noqdaan ama kuwa kale ha yimaadaan dawladdu waxbay kala dhaxlaan meel wax laga dhaliilana waa meel shaqo ka socoto wax ka jiraan oo dawladdu meel Everest kama fadhido maxaa leedahay waxaas fiicnaan lahayd inay ka gaarsiiyaan inta yar ee waqtiga ay haystaan naseexada ugu qaalisan oo aan u jeedinayo waxa weeye mudane madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin aan khayr ku tuhmaayo daacadnimo ku tuhmaayo ogahay insha Allah ta'ala inuu jecel yahay Soomaaliya xataa inay maaragtay wax noqoto oo jecel yahay waan ogahay waxaan dhihi lahaa waqti yar baa idin haray kolley haddii waqti kale aad heshaan ama iyaduna waa meesheeda laakiin waqtiga yar intii soo tagtay uga looga faa'iideeyo oo wax lagu xasuusto ama maamulkan ama dawladnimada lagu xasuusto wixii awood Ilaahay idin geeyo awoodii dawladda ah la geliyo waa gartay in ugu dambeyn qof gaajaysan oo wax lagu qoodiyo waa lagu daaweeyo wada uu maro koronto uu shito wax la idinku xasuusto sameeya siyaasadan iyo arrimaha siyaasiga waa everyday job waa ma shaqo maalmeed baa la dhahaa ya waxaas waxba dawladuhu adduunka hadhow laga xuso wax la iska laga xusaayo ma jirto laakiin wax raad ah oo ka tagaan dhihi lahaa intaydinaan meesha ka tagin taasaan ugu naseexayn lahaa culimadu dadkay ka mid yihiin waa bini aadanka Soomaalida Islaamka oo jirtay ka mid yihiin ma aha wax gaar oo cirka ka soo degay inta badanna dadku waa danleeyo nolol baa ku xiran inkastoo ay haddana aqoon diineed leeyihiin oo dhinacaas mas'uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay qabaa'ilkii Soomaalida ay u kala jajabneed maamul goboleed hebel aad maqlaysaa kulli tuulooyinkaas waa dawlad goboleedyada marka la fiiriyo dawlad kasta dad baa ku dulman dad baa reer hebel ah dawlad goboleedyadu waa qabiilo meel degay waxaad Soomaali deeqdo oo hadda ku kulansiin waa un dawladii dhexe Soomaaliya Sheekh Maxamed Idriis ma ka maran yahay horta qabaa'ilka oo ma yahay nin culimo ah oo Soomaaliyeed oo dadka u dhaxeeya waa qodob mucaarad iyo muxaafid mid keesa tahay hadda oo lagaaga xisaabtamaa qabiil anigu Soomaali baan qabiil malihi ya maalin dhaweyd waataan tifika lahaa haddii la yiraahdo dhalashana haddii aniga aabahay Eritrea ka yimi laakiin anigu Soomaali baan ahay baan yiri marka Soomaali aan ku dhashay Soomaali baan ahay afkaygu waa Soomaali taariikhdaydu waa Soomaali dhaqankaygu waa Soomaali deegaankaygu waa Soomaali muwaadin Soomaaliyeed baan ahay sidaas darteed waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala la hortagayaa inaanan qabiil gaar ah ama cid gaar ah hadalkaygu aanu ku soconay uu ku socdo Soomaalinimo Soomaali baan inta maqadaa insha Allah ta'ala Soomaalinimo iyo dawladnimo iyo qarannimo baad iigu imaanaysaa insha Allah ta'ala taas waa halkaas oo ay deeqda wax ka yar ima deeqaan markhaatideedina waan haystaa alxamdulillahi rabbil aalamiin Soomaali baa taqaana uma baahna macna inta aan ka soo shaqeeyay tuuladan aniga ku dhashay ama gobolkan ku dhashay kama aan shaqeeynin mucaaradna mihi muxaafadna mihi naseex baan ahay dawladnimadan jeclahay ninkii dawladnimadaas si fiican ugu socda waa la shaqeyn waan jeclahay kii aan ku soconna
dumin maayo oo waxba ku samayn maayo waa u naseexaynaya taas ay ugu imaanaysaa hadduu noqdo kan jooga ama kan ka dambeeya marka muxaafid iyo mucaarad anigu kuma shaqeeyo waxaan ku shaqeeyaa soomaalinimo iyo qarannimo qofkii qarannimada iyo xaqaas u iishana waan jeclahay waan la shaqayni waan taageeri waan ku taageeri xaqaas hadduu ka leexdana waan u tilmaamay si wanaagsan laakiin ma duminayo waayo dawladnimada saa adiguba tiri xoogaa yaroo jira baa nooga fiican dawlad la'aan haddii aan raacsado culummadu waa booska ambiyada xaqi iyo baadilkii waxaan waa diinta waa ku sax iyo waa ku qalad aqoontooda markay gaarsiisan tahay heerkaas waa u iftiinsan tahay ninka marka caalimka ah ee xaqi ilaahay saaray dana yar kaga leexda ama musuq yaroo la siiyey kaga leexda maxaa sharciyan horta diinta islaamka ay ka qabtaa wuxuu la mid yahay ninka madaxda oo isaguna xaqi ka leexday labaduba aakhiro waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa xisaab adag bay leeyihin caalimka cilmiga og oo ka leexday xisaab adag baa u taal oo aanu olayn qofka caamiga ah oo miskiinka oo aan isagu xogeyn ninka mas'uulka ah ama xilka haya oo xilkii gudan waayana waxaa u taala xisaab adag oo aan dadka caamka ah oo individualska ama iska afraada iyagu aanu olan shacabka aanu olin qof walba wuxuu mas'uul ka yahay inta uu waxa la weydiinayaa inta uu isagu mas'uul ka yahay anigu marka aan reerkayga iyo xaaskayga iyo caruurtayda iyo inta ii shaqaysa iyo baan mas'uul ka ahay adigu saas oo kale gurigaaga ninkaaga reerkaaga caruurta mas'uul ka tahay imaamku wuxuu mas'uul ka yahay dadka oo dhan 15 milyan baa la weydiinayaa ninka madaxweynaha ninka wasiirka waxa la weydiinayaa inta shaqadiisa hoos timaada marka saasa mas'uuliyaadku qof walba ay u kala yihiin dadka qaar baa isku qaldo oo dhaha adiga oo shacab ah iyo waxay isbarbar dhigayaan qof xil haya xilka lama doonto islaamka waa in lagu la soo doontaa fiican because waa mas'uuliyad marka dadkan xilka iyaga doontay ma cid baa soo qabatay oo tiri kaale ilaa 15 milyan adigu mas'uul ka noqo ma cid ma dhihin isaga qofku doontay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa khaliifadii labaad habeen buu wuxuu soo maray meel qoys cidla oo maaragtay meel safar ah oo meel islaan caruur haysat maxaa ahaydana safar baan ahayno caruurtii baa gaajaysan oo markaasuu inta naxay buu wuxuu aaday khasnadii dawladda burbuu soo qaaday alaab buu soo qaaday waa u dubay caruurtii buu cunto siiyey cashay siiyey markaasay waxay tiri ilaahay khayr ha ku siiyo annaga iyo Umar ibn al-Khattab oo waa imaamkii moogtay waa madaxweynihii oo kale ama amiirkii oo kale ilaahay baa noo dhaxeeyay bay tiri markaasuu intuu naxay wuxuu yiri Umar hadda muxuu idinka og yahay markaasay tiri sidee buu mas'uul noogu noqon karaa oo aanu war naga hayn laga inuu isaga yahay ma oga la waaga Facebook iyo sawirama jirin marka wuxuu yiri waxay tiri way aamusis waxay tiri ma mas'uul buu naga noqonayaa arrinka yagana kama warhayo isma qaban karto way macna marka adigu hadda tahay qof caadi ah oo shacab ah qof gaalkacyo jooga oo waxa laga yaabaa inaan lagu weydiinin laakiin ninka mas'uulka ah oo xilka haya قطعا ولا ويدينايا maxaa dhacay isaga shafka u dhigay oo yiri ana ka mas'uul Umar al-Khattab waxa kale oo u yimi nin governatora markaasuu wareystay oo markaasuu wuxuu yiri dadka meelaha waxada oo tuugada iyo waxas maxaa ku sameeyay markaasuu gacantan goynaya markaasuu wuxuu ku yiri adiguna haddaan gobolkaaga qof gaajaysan ka helo adaan gacanta ka goynaya qofka baahinta ku goys waana ka xaalisa qaar baan la yaabaa wasiirada inay wadanka joogaan iyo inaanay joogin baan ka shakiyaa qaraxyaa dhacaaya wasiir amni waa leeyahay meel joogo ma taqaan iyo waxa ka waray ma ogyahay mise ma oga ma naqaan adduunyada dadka xilalka haya oo dawladdu xataa ugu kala fiican yihiin ana waxaan xusuustaa madaxweyne xasan sheekh خير الله سيه مركي قرحيه يروح وزيركيسي داخلي ما يسعسلي ما يسعسلي عسلي ما قال عبد الرحمن يقول ما يسعسلي حلك ابو دريم waa يسعسلي waa maarta dareen waa waxa la hayaa dad aan dareen baa lahayn ba boqolaal qarax samay fiiru ku magacaabay waa iska jooga qof meel uu socdo mada meeshan waxa la yiraahdaa gurigii hooyada iyo guriga aabaha ma aha mas'uuliyadkan ummad Soomaaliyeed baa iska leh mas'uuliyadan nin wasiir iska walaha nin madaxweyne iska walaha ra'iisul wasaare iska malaha qof leh ma jiro
nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii u yimi oo yidhi xoolahanna waa kuwii aan inkamkii aan idiin soo ururiyey intana anaa hadiyad la ii siiyey wuxuu ku yidhi ma gurigii hooyada iyo aabbaha fariisatid bal aad aragtid in wax lagu soo hadiyeeye waxaa lagugu siiyey waa jagadaana la siiyey marka annaga diyaaradaha lagu raacay hoteelada lagu jiifanay baa marsheedsiyaa lagu socon marsheedsidan aad ku socoto iyo waxa lagu socoto waa jagadan mas'uuliyaddan dadka waay dadkeedii wax kama ogin ma laga aqbalayo ninka madaxa ah oo u sareeyana inuu ka aqbalo ma aha waxa kan oo nahaysta iyo dhibaatada nahaysato ee nagu raagtay ee soddonka sano jirta horta waa dambiye un gacanteena inaga kasbatay waxa inaga kasbanay waay wama asaabakum musiibati fa bima kasabat aydiikum aan ilaahay u toobad keeno midnimadeena aan ilaalin wadajirkeena aan ilaalin dawladnimada cid gaari ma laha maxaa Cabdullaahi Farmaajo ma laha Xasan Sheekh ma laha Shariif ma laha xildhibaanadu ma laha dawladnimada Soomaaliyeedna aan ilaashan iyo qarannimada aan ilaalin aan kala saarno iyada iyo qofka mucaaradkiisa qof annaga ma aha waxa aynu la haysanaa dawladnimadan ayaynu ka naxaynaa iyada ayaynu u qiiroonaynaa aan ilaashan wixii ka jira aan ilaashan mar walba aan xoojin waxaan kale oo ku talinayaa aan leeyahay dawladana war wixii loo igmaday wuxuu ahaa nabadgeliyada iyo nolosha dadka noloshooda kor loo soo qaado oo kaabiyaasha dhaqaale iyo adduunka laga shaqeeyo waxaan leeyahay sida muuqata sano kadib marka aan fiirino meeshii la rabay inay wuxuu ku shumaan ama dhaqaaluhu galo ama xoogu galo ama waqtigu galo gali maayay ee meel kale u galayay hal la geliyo dawladnimada dhismaheeda dawladnimada waxay ku dhisantaa warbal ugu yaraan magaaladan caasimadda ah ee irideeni ah war magaaladan aynu sugno dawladdan aan leeyahay iyo dawladaha kale oo ka dambeeya iyo kuwa iman doonaba iyo ku garo magaaladan caasimadda ah waxaa la rabaa in qof walba Soomaaliya ama qof walba oo ajnabi oo noo imaanaya magaaladan si nabad u mari karo soon cidna ka biqin haddii taas aanay jirin hadhow baa kuwa kale loo sii durkin karaa islaamku wuxuu aaminsan yahay oo siyaasadda islaamka qur'aankuna soo qaatul ladina yalunakum min al-kufar hatta gaalada marka la dagaalamayo maraykan uma talaabaysid iyo Australia horta meesha kugu dhow baad ka bilaabaysa innagana nabadgeliyada iyo wanaaga horta meesha kugu dhow ka bilow xasili kadibna gobolada kala tag iyo meelaha kala tag maraayadii meesha hadda amsada meel kale ma xasilin kartid taasna waxaan leeyahay siyaasad qalad ah waay waa siyaasad maamul goboleedyada iyo waxaan isku haystaan dawladda federaalka iyo waxaan waan horta dawladda federaalku inta ay hayso ha sugto si fiican ha sugto ciidamadan la rabo in ammaanka sugaan haddana waa ku soo celinaya markale waa ku soo celinaya askariga AMISOM oo meesha jooga 22,000 oo askari oo AMISOM jooga 22,156 inay yihiin baan u malaynayaa tiraahan kun iyo waxay qaataan $14 bay qaadan jireen ma qaan hadda in loo kordhiyay in wax laga dhimay ma qaan mar dhexdaas 2016 $822 baa laga dhigay annagana waxaan ku amaanana leenahay $170 buu askari qaataa budgetka hadda ah waliba horay uma jirin 170 wax karama tirada hal yareeyo hadii la doono 5,000 oo askari magaaladaas oo laakiin min $1 qaataa way sugi karaan oo Soomaali askarteedu dalkeeda iyaga sugi karaa waa dadkii dagaalkii 77kii libaaxiyadii Afrika ka dhigay bisadii Afrika way bisadii Afrika libaaxiyadii Afrika nimankii bisada ka dhigay maanta wiilal yar yar oo meelaha burjada laga soo siiyay ma sugi waayeen magaalada yeena sheekadaas ma sugi waayeen laakiin waan qalabkeedina la siiyaa nolosheedina la siiyaa vision iyo aragti lagu hagana waa inay jirtaa oo aqeedada dalkooda ay ku difaacanayaan ay leeyihiin laakiin ninka askariga ah oo isbitaal caruurtiisa u geystaan haysan gaajana ay u dhimanaysa sidee baad u rabtaa inuu ammaan ku soo haduna dhaawacna isdaaweenay ama u dhibaataysan yahay ma 12 sano anigu waa weydiinayaa hadda Shariif Sheekh Ahmed Xasan Sheekh Maxamuud Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hal cusbitaal oo ciidankaas leeyahay si gaar ah oo high class ah ma la sameyn waay oo yar oo clinic fiicana oo dadka kale xoogaa yar oo qiimaha bixiyaan askartana bilaash lagu difaaciyo iyaga iyo caruurtooda lagu daryeelo sidaasay markaas dalku difaaci karaan mushaharka ugu fiicanna la siiyo dad aan wadanka waxba u qabanaynin oo meelo iska jijiifa oo balad maruf ku socdo baan 10,000 siinayna sax maaha waxaas dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay
waxay u baahan yihiin anigu saan isleeyahay inay kacdoon sameeyaan oo waxa kan siyaasadan xun ee lagu daba wada ee qabyaaladda ka buuxda ee corruption ka buuxda ee hadda loo soo dhibi tumanayo ee la rabo maaragtay doorashooyin soo socdo doorashada anaga maxaa noogu jira adigu wax ma doorataa xamdi wax miyaa doorataa maxaa kugu jira marka maxay ka khuseeya qofkan mar rabo qofkaanna waa rabaa ma dhihi kartaa haddaadan dhihi karin ima khusayso aniga wax iga khusaysaa ma jiro waayo dalkayga aniga tala kuma lihi waxaan maqlay niman wasiirro ah oo qaarkood waxay leeyihin anigu waa soo tartama dhallinyarada afjugaynaya war maxaa dhallinyarada ku afjugaynaysaa corruption baad ku soo gashay ma corruption buu kuga soo geli karaa $500,000 miyuu dhigi karaa waan soo tartamay nin wasiiran maqlaayo oo leh waan soo tartamaa anigu markii la yidhi meesha maxaa uga dhaqaaqi weyday 20 sano taagantahay xur waa soo tartamaayo soo tartan xaga tartanku jooga kaale tartan oo tartan Soomaali dhexdeeda imow oo magaalada Muqdisho kaliya tartanka laga sameeyay iska dhaaf meelaha kale markaas aad arki lahaydeen haddii la idin dooranayo iyo haddii aan la idin dooranayn marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeedna xaqiina idinka ama dayici kara ama idinka gaari kara kacdoon u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed xaqiiqatan anay saylata kacdoon u baahan yihiin kacdoonkaas ma aha wax burburiyaan wax jabiyaan laakiin waxa weeye xaqaygii baan rabnaa afka ka hadlaan bas dadka Soomaaliyeed iyaga dalkooda masiirkiisa iyo aytiinkiisa ka talin kara iyaga diidi kara qabyaaladda iyaga diidi kara kan qabyaaladda ku shaqaysanaya oo corruptionka ugu shaqaysanaya iyaga diidi kara kan daaraha ku dhisanaya dhiigooda ku dhisanaya iyaga diidi kara dadka Soomaaliyeed iyaga diidi kara codkooda ha furaan ha baxaan kacdoonkooda ha samaystaan anu saasaan dhihi lahaa wax kale u haray ma jiraan afkooda ha furtaan dadka Soomaaliyeed waxa kale u haray ma jirto enough is enough magaaladu tiraahda enough waa nagu filan tahay wax loo dul qaadan karo ma aha waxa wadankeena ka jira dawaamadaas inaan mar walbana ku jirto 4 sanaba aan ku jirno oo dad maaragtay dawlado kale ay lacag soo siinayaan boorsooyinka ku wata ee doorashooyin noogu galaan hadhow 4 sano kale saas hadan ma suurtoobi karto wax ugu jiri kara ma ilaahay baa subhanahu wa ta'ala qaanuun saasan leh Sheekh Maxamed Idris Ahmed ayuu ahaa waraysiga toddobaadka marti igu ahaa wuxuuna si saraaxad leh uga hadlay diinta islaamka iyo dawladnimada halka isaga xiran yihiin qaladaadka jira iyo fursadaha la haysto waxaan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga ah Sheekh Maxamed